jaray waxaana fikirka guriga la yimid nin ku nool dalka Nepal oo xaaskiisii 2 caruur oo dhalay la soo degay gurigaasi kadib markii uu dhameystiray dhismaha guriga. Waa guri cajiib ah, dad badan ay aad ula yaabeen qaabka loola yimi fikirka ah in la dhiso gurigeeda ka samaysan. Dhismihiisa ayaa qaatay ilaa 2 bil in lagu dhameystiro, iyadoo lagu dhisay qarash gaaraya ilaa $300 Mareykanka ah. Qoyska guriga geedka dhistay ee degay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin gurigooda cusub, isla markaana ay aad u quruxsadeen. 5 guriga labada dhagax. Gurigan waxaa la dhisay 1974 waxaana ku yaala dalka Talyaaniga. Inta badan gurigan waxaa la tagaa xilliyada qabowgu jiro, waxaana la sheegay inuu yahay guri ay wax kasta u dhameystiran yihiin, xataa leh meelo lagu nasto iyo meelo lagu dabaasho. Qof kasta oo ku nool dalka Talyaaniga wuu jecel yahay ayaa la yiri inuu ugu yaraan hal habeen uu seexdo gurigaasi. 6 guriga diyaaradda. Gurigan waxaa loo sameeyay sida diyaarad hawada inay gasho la doonayo oo kale. 50 qol ka badan ayuu ka kooban yahay. waa loo soo dalxiis tagaa iyadoo habeenkii lagu seexdo ilaa $2,000 Mareykanka ah. Guriga diyaaradda waa guri ay u dhameystiran yihiin dhammaan agabkiisa. Marka aad rabto inaad jaranjaradiisa kortana waxaa lagu furayaa remote-ka oo si kale kuma shaqeynayo. Aad bay dadku u jecel yihiin inay u dalxiisaan gurigan diyaaradda oo waliba aad qaali u ah kiradiisa. 7 guri loogu magac daray gurigii noloshu waa safar oo ka samaysan gaari sida aad u jeedaan. Gurigan nin ayaa u dhistay xaaskiisii caruurtiisa ay ku nool yihiin, isagoo sheegay inay waqti dheer ku soo qaadatay inuu gurigan dhiso. 8 gurigii noloshu waa hees. Gurigan waxa uu ka samaysan yahay gitaar iyo piano. Waxa uu ku yaala dalka China, waana guri waqti badan uu ku baxay si loo dhiso. Sanadii 2007 ayaa la sheegay in dhismihiisa la dhameystiray.